Saraakiisha milatariga Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda uu taageero Mareykanku ay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Mosul oo ay kooxda Daesh maamuleysay tan iyo sanadkii 2014. War lagu qoray shaashadaha telefishinka dowladda Ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta degdega ah ee booliska federaalka ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya garoonka diyaaradaha ee Mosul. Saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada ay sidoo kale dib u qabsadeen saldhig milatari oo ku dhegan garoonka, ayna gudaha u galeen xaafadaha Mosul markii ugu horeysay muddo bil ah. Generaal u hadlayay saraakiisha ciidamada Ciraaq ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq diyaarado iyo duqeymo culus ay taageerayaan ay dhowr dhinac ka soo weerareen garoonka. Sarkaal kale oo Ciraaqi ah ayaa sheegay in dagaalyahanada Daesh ay qaraxyo iyo ismiidaamin baabuur loo adeegsaday kala hor yimaadeen ciidamada dowladda Ciraaq. Waxa uu sheegay in uu gaadhay khasaare 12 ah hase yeeshee badankoodu uu yahay dhaawacyo fudud. Khalid Cabdikariin Xaaji.